suufiyo maxay qabatay waxaan idiin sheegayaa markaad u noqoto taariikhda islaamka waxaan idhaahdaa waana aqliiskama odhanayo ugu mufasiriintaan soo sheegnay muxadisiintaan soo sheegnay fuqahadii aynu soo sheegnay ahluluqadii aynu soo sheegnay mujaahidiintii aynu soo sheegnay culimada qaybaha islaamka 99 oo iyaa ka mida waa ahluzuhdi walwarac watasawuf diinta islaamku waa saa ninkii inay sidaa run tahay ama kale ogaanayo waxaad keliyoo aqridaa kitaabka ibnu kathiir ba khulaasiga may kitaab wuxuu leeyahay 12 mujallad ah oo mujalladkiiba 1000 safxa uu leeyahay oo la yidhaahdo albidaayatu walnihaayatu fi taariikh min alifihi ilaa yaadihi anigu waan taqriin waxaan ku qancay 99 min culamaa'i lumma inay suufiyada kitaabkaasaan kaga qancay ibnu kathiir maxaa inuu ka sheekay ruuxa waxaa weye taariikhdiisu ka sheekay wuxuu ku dhihi marka almig waacidun waxaa lagu tacriifinayaa annahu muxadithun mufasirun suufiyun zaahidun baradi mid kasto u fiirsada qofkii muranka qabana ha u noqda kitaabkii buu yaalaayo aqrif wasaas maaha 9 marka sidaa wey iyadoo sidaa tahay yaa waxaan qadiiman wa xadiidan mar hor iyo mar dambe iyo weliba yaanu imaanaynaa maxaan ka bilaabaynaa waxaan ka bilaabaynaa diinta islaamka waxaa uga horaysa tacliim soo maaha tacliim oo dhan waxaa iyadaa gacanta ku hayay sidaa maalidooda muxaadarada lagu sheegay xilyatul awliyaa kitaabka la yidhaahdo oo iska leeyaha abu nucaym waxaa weeye wuxuu ku soo aroorinayaa wax ka badan 1000 sheekh ama 1000 culimada ka mida markaasuu weliba mid walba noloshiisii iyo karaamadiisii iyo wuxuu diinta u qabtay ayuu sheegay taasoo mid ma aha waxaa ku dayday ibnuljawsiya ninka la yidhaahdo ayaa ku dayday wuxuu alifay kitaab la yidhaahdo safwatu safwa markaasuu kitaabka bidaayadiisu wuxuu oranayaa waqti hadda hal sano laga jooga ayaa safwatu safwa ayaa suudaan ku arkay wuxuu oranayaa kitaabkan muxuu ahaayey waxaan ka raacay xilyatul awliyaa abu nucaym ayaa ka raacay isagaa wuxuu qorayaa 1000 sheekh oo kulli muxuu qorayaa yani waxaa laga hadlayaa xagga dhinaca tasawufka iyo zuhdinimada iyo karaamada ma inuu iska qorayo haddii la qorayo siiro wayna jirtaa maxay xilyatul awliyaa waa ujeedaa waa biladihii awliyada soomaa awliyaa meesha laga sheekeynaya awliyaduna waayo waa ahlu suufiya waxay kulli qaybimayn aan ku nimaaduna waxaanu ka bilaabaynaa tacliim haddaad fiiriso markaad fiiriso alfuqahaa innagu aan weliba naqaano waxaad arkaysaa mucdamuhu inuu suufiya marka muxadisiin baan ku horeynaynaa alimaam nawowi waa taqaanaa waa suufi sheekhi waxbaro abushaada la yidhaahdo waa suufi jalaaluddiin asuyuuti waa suufi iyagaa ka hadlaya ibnu daqiiq alciid oo mujadidu qarni taamin ahaa waxaa weeye waa suufi ragga aan naqaano oo muxadisiinta ah waa sidan soo maaha haddaad u timaado fiqhigii waa diyaabi fuqahada mucdamkooda saa u sheegay waa culimada zuhaadiya tasawufka oo nawowi uu ka mid yahay saa u sheegay oo in waa fuqaha xaggan dhinacana waa muxadisiin labadii midnaba kama maqnaanayaan marka aad fiiriso waxaan la yaabay beri dhaweyn baa waxaan akrinayay kitaab la yidhaahdo اللطائف المنن الكبرى وعلى الشيخ عبد الوهاب الشعراني الليلة وكبار الأولياء والعلماء والتصوف ينقص عبد الوهاب الشعراني وعلى هذا المنن الكبرى
وحيانه ليه يستمر شيخ المنهاج كشرحي مغني المنهاج مغني المحتاج شرح المنهاج واتقانا صوما علماء الصومالي الشافعية صوما تقانا من كاسي عبد الوهاب الشعراني حكي سكن أهايو من أولياء الله الصالحين الكبار شيخ أمرتين المجاهد اللي هذا العز بن عبد السلام سلطان الأولياء شيخ صوفيا كاملة أيوه المنايا مركاسو والتفسير قبل والله تفسير آيات ولي صوفيا مركو تفسير وعز بن عبد السلام فيه مركاسو أواقي وردلوا كالياي ورئيسوا إمام داي لتسمعوا تفسير كلام الله قريب العهد بربه مبين من صوفيا يا قرآن في تفسيرنا وحالنا الموجة قريب العهد بربه صلى عليه الصلاة والسلام الهجري فوق مركب صادق بمعنى أبوه السوق لك فإنه قريب العهد بربه صلى الله عليه وسلم واصل وكذا والتفسير كمان الله كما المعاني وإلهام إلهي وكرم إلهي وعز بن عبد السلام قال يدرسنا ساسو عليه سامع كان عن الله وحال صوم قطع مراكزنا أمام لها سلطة إسلامك يا أساسا يا سوري وحتى صوم بالله المغرب العربي وأمرك الدنيا القيروان لا شريك له وقطع مروكو حلالك هاي جامع قيروان من اللي يهدو والأزهر وكالتاء يا أساس العلماء الصوفية أساسي وحكمل والمرد أقرني علماء كسر تخرجتين الشيخ أحمد بن إدريس الفاسي أحمدية الشيخ هو أيا كمل قيروان كسر تخرجتين هو حدثوا يا مروكو الزيتونية وطول فيها يا أساسي علماء الصوفية أساسي ناس اللي هاي جامع الأزهر وهو يا أساسي يا أساسي يا مركو هر أساسي نمشي لكن مركو دبر أهل السنة والجماعة وقعدوا رقصوا مضي وحاول يلهلك أصول مضي حتى مكة هي المدينة والنبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي أول بيت مدعى للناس يا دعمتك وهنجري أكوهنجري البيت أي أكوهنجري وحانو إيماني أمريكا وضن كينا مراكز تكسر بالله إثيوبيا نكسر بالله والجزيرة يقولون إلى الناس قدام بيسو جميع المراكز جارها العلماء الصوفية على الشافعية عليه هم اللي سكانوا وحاول الحركة الوهابية مقالة السلفية للشيخ مقالة يقال السلفية إخوان المسلمين تعملوا هذا عن شيخنا لك القيل إنما صدح يسيديت السلفية يا ولي مكة الإسلام يا هيدي لو شيء كتاب أنت صبرت يا بس ذاك يا قرآن كنتي جري ذاك يا فقه بواخر جري مراكز تقارن من قرن كسر بلا جيجيو علماء الصوفية ده صومالي كالمدوان اللي كان هذا بيا بقول الموت يا واحد يا بعد بار تاريخ كده وإما وجبال هوسية إسماعيلية وحكيجيو وإما حياته هاي ماركو شيخ علي مليك يوم بالمراس بيمان يا جوري هلكا وإما بنادر مع الشيخ علي صوفي يا شيخ فلان أركت أنت علماء وفرني يبقى قبول طولا والشيخ يا هلكا يا علماء قرن نقول قال كعيديو هرجيسية يا علماء
وأين روحي وأين حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم بفوء يميني ثم ينادي منادي يا رضوان افتح باب الجنان ويا مالك افتح باب النيران ثم يجيء ملك الرحمة بالحلل وملك العذاب بالأغلال والسلاسل وأثواب الأجرام ثم ينادي المنادي يا معشر الخلائق انظروا إلى الميزان فإنه يوزن عمل ابن فلان بن فلان ثم ينادي المنادي يا جنة خلود بلا موت ويا أهل النار